magaalada Muqdisho ayaa caawa mar kale waxaa ka dhacay weeraro qorsheysan kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday baro iyo xarun ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda. Dagaal ku bilowday bam gacmeed ayaa ka dhacay xaafadda Ceymiska ee degmada Yaaqshiid. Koox hubaysan ayaa weeraray bar control oo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin nawaaxiga saraha Ceymiska. Dhawaqa rasaas xoogan ayaa isqabsatay waxaana xigay hub culus oo aaga ka dhacay. Cabsi ayaana soo food saartay dadka shacabka ah ee halkaas ku nool. ciidamada dawladda ayaa iska caabiyay weerarkaasi waxaana dib u laabtay kooxdii weerarka soo qaaday. dhinaca kale kooxo hubaysan ayaa caawa mar kale weeraray xarun ay ku shaqeeyaan maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. isku dhac u dhaxeeyay kooxda weerarka soo qaaday iyo ciidamo boolis ah ayaa ka dhacay waaxda saddexaad ee degmada Kaxda. waxaa la soo wariyay in weerarkan uu ka dhashay khasaaro inkastoo haatan la ogeyn inta uu la eg yahay. sidoo kale waxaa qaybo ka mid ah degmada Daynile laga maqlay caawa fiidkii rasaas xoogan iyadoo ciidamada ammaanku ay baaritaano sameeyeen inkastoo ay baxsadeen rag bastoolada ku hubaysnaa. xaaladda amni ee magaalada Muqdisho ayaa u muuqatay in ay faraha ka baxday waxaana wax ka yar 24 saac ka dhacay Muqdisho weeraro qorsheysan. Al-Shabaab ayaa xalay weeraro ku burburiyay xarunta iyo saldhigga booliska degmada Kaxda waxaana sidoo kale ay weerareen guri uu deegaanka Daarusalaam ka degan yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Hilwa Axmed Nuur Adeerow iyo 5 fariisimo kale oo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda. shacabka Muqdisho ayaa cabsi ka qaba weerarada ku soo badanaya magaalada Muqdisho xilli maanta ra'iisul wasaare Roble uu kulan degdeg ah isugu yeeray hay'adaha ammaanka dawladda si ay wax uga qabtaan falalka amni darro ee ku soo korortay caasimadda Muqdisho.